kooxdani horta waxay u taagan tahay magaca Soomaaliyeed. kooxdani shakhsina ma aha, kooxdani qabiilna ma aha, qolo gooniyana ma aha. kooxdan waxay ka kooban tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan. kulligeen waxaan isugu imaanay magaca Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed. waxaan mar walba ka shaqeynaa sida uu farxad gelin lahayn shacbiga Soomaaliyeed. maadaama Soomaali laga soo tegay qurbana la yimid dalkii burburka dhacay, kooxdani waxaa horta ka mamnuuc ah wax la yiraahdo magac qabiil, inuusan qofkeena naga mid ah qof anaga naga mid ah inuusan ku dhaqmin wax qabiil la yiraahdo. qofkii qabiil lagu arko ama qabiil ku dhaqmo anaga naga mid ah namana ka mid tan kaloo labaad waxaan shacbiga kooxdani horta waxay u taagan tahay magaca Soomaaliyeed. kooxdani shakhsina ma aha, kooxdani qabiilna ma aha, qolo gooniyana ma aha. kooxdan waxay ka kooban tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan. kulligeen waxaan isugu imaanay magaca Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed. waxaan mar walba ka shaqeynaa sida uu farxad gelin lahayn shacbiga Soomaaliyeed. maadaama Soomaali laga soo tegay qurbana la yimid dalkii burburka dhacay, kooxdani waxaa horta ka mamnuuc ah wax la yiraahdo magac qabiil, inuusan qofkeena naga mid ah qof anaga naga mid ah inuusan ku dhaqmin wax qabiil la yiraahdo. qofkii qabiil lagu arko ama qabiil ku dhaqmo anaga naga mid ah namana ka mid tan kaloo labaad waxaan shacbiga aamusnaanta waxay ka mid tahay anshaxa qofka, mana aha qofka inuu cabsado markuu aamuso. waxay ka mid tahay aadaabta qofka gurihiisa oo kaga soo baxa. marka waxaan hadalka ku dheeraada umalinaa waxaan leenahay guddi sare si walaalkii Anwar uu sheegay iyo guddi hoose. aamusnaanta waxay ka mid tahay anshaxa qofka, mana aha qofka inuu cabsado markuu aamuso. waxay ka mid tahay aadaabta qofka gurihiisa oo kaga soo baxa. marka waxaan hadalka ku dheeraada umalinaa waxaan leenahay guddi sare si walaalkii Anwar uu sheegay iyo guddi hoose. haddaan idin qeexo oo aan idin sheego guddiyada magacooda oo idin soo shaaciyo, wuxuu ka kooban yahay hooyo Faynus Sheekh Daahir, Marisa Carbona, Amara Cali Shoobare, Abuukur Mahdi. waa guddiga sare ee go-aanka ugu dambeeya kooxda iska leh. guddiga hoose wuxuu ka kooban yahay 5 qofood. waa guddiga qof walba wax tabanayo uu gudbiyo khilaafaadka, howlaha isku dabridka, wax walba ay kooxda mas-uuliyadooda saaran tahay. waxay ka kooban yihiin 5: Cumar Yare, Amiirad Qatra, Nasteexa Qaran, Anwar Axmed Naaji Sacad iyo Ustaad Cali. guddiyadani waa guddiyada kooxda mas-uulka ah. shacabow sidaas ula socda kooxda. waxaan u rajaynayaa horumar iyo qaayo. adinkana sidoo kale waan idin jeclahay shacabow. I love you so much.